dhinaca Ruushka haddii aynu fiirino dowladda waddankaasi Ruushka waxa ay ku eedeysay dowladda Ukraine in ay duqeysay xarunta soo saarka shidaalka ee magaalada Belgrade ee waddankaasi Ruushka. Gobernatoraha magaalada Belgrade ee dalkaasi Ruushka ayaa waxa uu sheegay in dowladda Ukraine ay u adeegsatay diyaaradaha qumaatiga u kacay helicopterska in ay weerar ay ka geysteen xarunta soo saarka shidaalka ee magaaladaasi. Igor Konashikov ayaa waxa uu yahay afhayeenka wasaaradda difaaca Ruushka, waxaana uu sheegay saacaddu 5 marka ay ahayd subaxnimo dhinaca Moscow laba diyaaradood oo helicopter oo Ukraine ay leedahay nooca Mi-24 ay gudaha u gashay hawada waddankaasi Ruushka, kuwaasi waxaa la tilmaamay joog hoose ku duulaya waxaana ay duqeeyeen xarunta lagu keydiyo shidaalka ee deegaanada magaalada Belgrade, waxaana gabi ahaanba ay burburiyeen xaruntii shidaalka lagu keydinayay halkaasi oo sidoo kale dab xoogan oo isqabsaday. waxaana la tilmaamayaa in ay arintaasi aysan wax xiriir la lahayn ayaa la yiri ciidamada militariga ee waddankaasi Ruushka. mas-uul u hadlay amniga waddanka Ukraine Oleksiy Danilov ayaa waxa uu sheegay in dowladda waddankaasi Ukraine ay iyadu ay weerartay subaxnimadan Sabtida xarunta soo saarka shidaalka ee magaaladaasi. TV-ga Ukraine ayaa waxa uu tabiyay weerarkaasi in uu yahay mid ay fuliyeen kuwa Ruushiyaan ah oo raali aanan ka ahayn dagaalka ka socda waddankaasi Ukraine. sidoo kale waxa uu TV-ga uu tilmaamay dhacdooyinka noocaasi oo kale in ay sii socon doonaan. xaruntaasi waxaa la arkayay oo dab oo isqabsaday, muuqaalo lasoo bandhigay oo lagu baahiyey baraha Twitter-ka waxaa lasoo bandhigay dabkaasi xoogan oo ka kacaya waqooyiga dhinaca iyo goobtaasi shidaalka soo saarta oo si aada ugu dhow 40 kilomitir xuduudda waddanka Ukraine. fiidiyoyaasha la soo qaaday waxa ay muujinayeen xarunta oo holcaysa. mas-uuliyiinta Ukraine waxa ay iska fogayeen in ciidamada Ukraine ay iyagu weerarkaasi ay waxay ka ogaayeen. waxay mas-uuliyiinta amniga waddankaasi Ukraine ay shaacay ka qaadeen in aysan waxba ka ogeen weerarka lagu qaaday xarunta shidaalka ee waddankaasi Ruushka. waxaan raadin doonaa ayay yiraahdeen macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan warka dhinaca kale ee Ukraine ka soo yeeray oo iyagu in ay weerareen. ku-xigeenka madaxweyne waa ra'iisul wasaaraha ee dalkaasi Ukraine Oleksandr Mizykov waxa uu shaaca ka qaaday in waxyaabaha hadda dhacaya aysan waafaqsaneyn dhacdooyinka duulaanka Ruushka. isagoo BBC-da la hadlayay waxa uu sheegay in laba wada ay u furan tahay taasi oo ku saabsan inay ogaadaan dhacdadaasi sida ay ku dhacday iyo haddii saraakiisha Ruushka iyaguba ay ku lug leeyihiin dhacdadaasi. tan labaad waxa uu ku tilmaamay in loo baahan yahay faahfaahin dheeraad ah oo laga bixiyo weerarkaasi. sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in aysan jirinba diyaarado Ukraine oo iyagu bartilmaameysaday saldhigyo ay ku sugan yihiin ciidamada Ukraine. Dmitry Peskov afhayeenka madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin waxa uu dhacdadaasi ku tilmaamay mid aysan raali ka noqon doonin, taa oo dhabarjab ku noqon doonto wadahadallada nabadda ah ee Ukraine iyo sidoo kale dowladda Ruushka uga soconaya magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.